فمبارك طبتم وطاب غراسكم ودعتم خير نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأها مدينة رسولك إلهي انتو صادري مدينة حكم كيسي عدالة بدنا كبلاوي يعني يهودي أو رعاياكيسي يددكي ومسؤولك كاها كاميدا نين كاميدا كو ددك أجعلا أو حديث أقوبادا كوريو اللورنجري جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنساري وأها من بني سلمة وأها نين فاضله النبي جعل يهي أيا وحلة الماما إنay qisada noo dhex martay qisadu waxay ahayd nin yahuudiya ayay jaabir wax kala deynsan jireen yahuudigii baa jaabir wuxuu ku yeeshay deyntii ayuu jaabir wuxuu ballamiyay xilliga beerta la goosto timirtu xilliga soo go'do imow xilliga ayuu u yimid jaabirna wuxuu ninkii u waayay wuxuu ku amba bixiyo deyntiisii uga dhigo sababtoo ah xilliga waxa jiray oo jaabir soo food saaray inuu ahaa nin faqiira oo aan meel kale wax ka heli karin timirtiina ay u bixi weyday yahuudigii wuxuu ku yiri mar kale wixiga sug yahuudigii wuxuu ku yiri mar kale wixiga sug tabeedna yahuudigii waxa uu ku yiri waa yahay mar hadduu ka noqday sanadkii labaad buu ku soo noqdayo waxa uu yiri had misana wixiga sug hadana tabeedna yahuudigii waa ku adkaadayo waa uu diiday inuu waxba ka sugo markuu yahuudigii diiday inuu waxba ka sugo ayaa wuxuu yiri waxba doorkan ka sugi maahay jaabir wuxuu qayshaday saxaabadii rasuulku saxaabadii ayuu soo kiciyay dabeedna waxa loogu yimid jaabir beertiisii dhexdeeda yahuudigiina daris buu la ahaayo waa loo tagay nabigu wuxuu kala hadlay inuu jaabir deynta uu ku leeyahay doorkan intuu ka sugo dib ugu dhigo dabeedna yahuudigii waa uu diiday calayhi salaatu wasalaam ilaa uu wax la'aan intuu ka soo noqday hal amar buu siin karayo magaalada haddaad rabtay inaad sii joogto amarka yagii weeye annaga rasuulka ilaahay sidaa yeel لكن ما أنا يهين تلذ النبي محمد عينك عليه الصلاة والسلام وحا رسولك سميي جابر إنو كي هذا نينك يتلمان ونينك يتلمامو هدنا أطاقه أو كي هذا جابر كسك دينت أتقول هذا السنة كذا ما يسكب حيه مماضلنا ما هين تبعنا جابر واوديدي يهودي إنو كسك جابر واوديدي مركو لما تشير النبي كون نغمي أيو يري بل ماشات سيحان ترتي جوجل markaasuu halku seexan jiray u goglay markaasuu halkii nabigu yara seexday markaasuu geeda rudaba intii mira uga soo guray markaasuu mar saddexaad casarkii ku noqday markuu soo diiday ninkii markii saddexaad ee uu yiri ya aba qaasim waxa weeye marna inaan sugaa dhici maysa ninka sanadka waxaygii uu isinama waanu isdilaynaa ayaa waxa dhacday nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yiri jaabirow orada beertaada inta dhex qaado ninkani waxa uu kugu leeyahay uga soo gur beertuna tu waxa lagu leeyahay kala barkii iyo thuluthkii iyo khumuskii toona gaaraysa mayna ahayn jaabir mid kamida mucjizaadkii nabiga intuu beertay dhex galay ayuu ka soo guray wixii ka soo gur la yiri dabeedna intuu deyntii sii bixiyay oo uu waliba deyntii si fiican ugu guday ayay beertiina sideedii iyadoo soo hadhay markaasuu nabiga markuu u bishaareeyay ku rasuulkii Allah deyntiina waan guday waana ducadaad ii ducaysay dayntii markaan guday waliba timirtaydi iyadoo sidii abay soo hadhay intii yaraydeed ogeyd yaa wuxuu yiri nabigu ashhadu an la ilaaha illa allah wa anni rasuulullah kullaba soo waxa dhageysataa nabi maxamed oo taagan mowqifkii badar wuxuu wataa 313 kan isma yaqaanaan ninba wuxuu ka soo jeedaa qabiil iyo hayb iyo dawlad iyo dal iyo meel gaar u ka soo jeeda laakiin waxa hor fadhida kun abi jahal wato iyo shayba iyo cutba iyo hebel waa kun ilma adeeruhu dagaal taqaano dawlad soo jireena waxa weeye dagaalada u gali jirtay nin waliba dhinac ka dagaalamay xaaladda uu ku fiican yahay iyo tabti iyo xeelada way isla yaqaaneen laakiin kuwa nabigu saxaabada ee la socday qalbi bay hayaan iyo niyad iyo iimaan dad is yaqaano isku tabaho dagaal la soo wada galay ma aha hubna ma wataan 70 waxa weeye laba faras bay wataan halkay kuwa kale 70 ka wataan 70 neef oo geelay wataan halkay kuwa kale 700 ka mulkiyaan kun bay yihiin halkay kuwa gaaladii halkay kuwa muslimkii 310 ka yihiin iyo 13 iyo tiro yar oo dhowr iyo 10 iyadoo halka la taagan yahay ayuu safkii simayay nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu safkii simayay ayaa nin Sawaad ibn Qusayya la yiraahdo saxaabiya yaa dadka saa uga soo yar dhex baxay qul yaro xarbaahu nabigu watayo saa ciidanka ugu kala safayay ayuu saa ugu dhuftay oo wuxuu ku yiri
سوي صف يا سواد بالنبي كوري عليه الصلاة والسلام سواد وصفك لسمن أشيب وكرفتي سواد انتو على شيء قبطيبا وحوري أوجعتني يا رسول الله رسولك إله يوآد بعضي حنون الصي آد بانو حنون صدي مركاسا وحو يري محاد محينو سمينا مركاسا وحو يري وحن دونا يينان كارغوست waad garan kartaa maanta luqada caalamka ee siyaasadda waxa lagu yiraahdo amar diida goob dagaal askarigu hadduu goob dagaal amar diido dadka yaqaana waxay noo sheegaan inuu dil mudan yahay leysna weydiinayn baa la sheegaa laakiin nabi maxamed badar buu hor taagan yahay siduu u ducaynayay oo cirka gacmaha ugu taagayay buu go'i ka dhacay xitaa markaas Abu Bakar wuxuu leeyahay rasuulka Ilaahay oo intani way kugu filantay intaas kugu filan kafaaka munashadatan ya rasuulallah wuxuuna leeyahay allahumma in tuhlik hadhihi al-isaba falan tu'bad ba'da al-yawm ما أنت دبدل لجو عابدي ما يكون هذا هلاك أبو بكر يا عمر يا أبو عثمان يا علي أي كم تكيين وحوي مركز رسولك عليه الصلاة والسلام وحكوا يري سواد ومحط كرها اللي نقنا وحكوا يري دايران كو جراع عصادي جراع ضي مركز وحكوا يري هيا وشق عضو إيجاد شر ورخصه مركز وحكوا يري عم بربريت كيو طلب كدجال كده حرمتها إسكب حانوان في رقاوان هاي مركز نبي جو إسكب عليه الصلاة والسلام وحكوا حدنا يردن هو فريه سقاوي مركز وحكوا يري أرقصه مركز وحكوا يري markuu ka argoosimaagay ee saxaabigi soo dhaqaaqay sidii la islahaa ayuu nabiga feera qaawan ku dhagay oo dhunkaday intuu u sheedina isaga tuuray wuxuu yiri ma xamalaka hada ya sawaad sawaad maxaa kugu xambaaray sidaad adigu yeeshay wuxuu yiri waxaan hor taaganahay dadka aad aragtay tirada ay leeyihiin iyo cadownimada ka muuqata maanta dhimashaan u dhownahay marka waxaan islahaa buu yiri aakhiru ahdi bid-dunya عهدك يقول دنبيا أدونك إن الحجاء نقطة جرك يقول حطابتي جد نبي معصومة جرك نبي محمد خاتم الأنبياء والرسل سواد سودان تاسو كلها لكن نبي محمد إنه تكلين وقفا يدي سوى حوي عدالة دي حتى ماشى أبو خطر صن أدونك هدوك تاجن يهي إسلامك ومنهج عادلوي إسلامك ومنهج عادلوي مرك أمثلة ذاسي لما أنت ضحيك تصينيان عدل الإسلام وسلسل كاسنا أما قصص كعبرة له كسابسا عدالة الإسلام كنا وينصي عندنا إن شاء الله تعالى إنك وكان قاعدنا إن السنة الصحيحة إيوه قرآن كريم كمان وحن لنا هاي مقاطع داس أدوجنا دقيسه غير كان قدر أمرنا ما هي إحسان ويوه الدال على الخير كفاعله بين لنا إن شاء الله تعالى فلتخبروا من بعدكم من زاركم أن العطايا حفظ أين واكتساب